waxaa maanta sharaf ii ah inaan halkan kala soo qayb galo guutada 18aad ee Kumaandooska Gorgor. sidoo kale waxaan halkan iyagana sidoo kale aan maanta ugu imid runtii farxadna ay tahay saraakiisha macallimiinta saraakiishii u timid wacyigelinta culamaa diinka iyo dhammaan Gorgor xubneeda. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib Kumaandooska Gorgor waa ognahay dalkan dhibaatada uu soo maray kaalinta ay ku lahaayeen waa ognahay kaalintaasoo maanta meesha aan joogno ay ka turjumayso. waxaan rabnaa Gorgor guulo badan oo dalkan ay soo gaartay ayaa jira. guulahaas ay hore u soo gaartay waxaan rajaynaynaa inay u diyaar garoobaan. waa ognahay waa ka adagnahay waa ka awood badannahay waa ka niyad fiicannahay. marka Gorgor waxaan leenahay ha u diyaar garoobeen guutadan khaasatan guutada 18aad ururadeeda hadda maanta halkan taagan. waxaan rabnaa inay tallaab dhammaystir waayo waxaa noo dhiman inay dhammaystirkaas nala qaataan inay dhammaystirkaas guusheeda ay qaataan sida uu sheegay taliyaha ciidanka lugtu. waxaan leeyahay maanta taliye Gorgor ah ayaa idin yimid oo tababar Gorgor iyo hogaamin iyo howlgelin Gorgor haysta ayaa idin yimid. waan rajaynaynaa inay mataqaanaa si fiican aad isu fahmi doontaan isula howlgeli doontaan. Soomaaliya ha noolaato. waxaan rabaa marka iyadoo ay tahay colkii ugu horreeye ee aan maanta kula kulanna halkan ay tahay waxaan rajaynaynaa inaan marar badan oo kale kulmi doonno. waxaan rajaynaynaa in qaybaha kale ee ama Gorgor ama ciidamada intooda kale sidoo kale aan kulmi doonno. waxaan rajaynaynaa marka in guushaasi gooran dheerayn aan wada qaadan doonno aan ku wada guulaysan doonno. Gorgor 18aad ha guulaysato. Soomaaliya ha guulaysato. waxaan rabnaa marka 3 urur oo min 9 ah waxaan dallacsiiyey nin walba min hal darajo oo ah ta u wato tan ku xigta intaas ay u dallacnool.